waxaan akhriyaa iyarka akhriyo qodobada soo dayo hore inuu la socnaa bismillaahi rahmaani rahiim kulankan maanta oo ahaa runtii kulan daba socday kulamo hore u dhacay aad iyo aadna aan xooga u saaray Stockholm oo kaliya iyo bulshada reer Soomaaliland ee ku nool in ay bilaabaan kulamo joogto ah oo xilliyo kala duwan dhaca oo lagu midayn doono ama khilaafaad hore u jiray ha jiraan ama tuhun dadka dhexdooda galay ha noqoto in jaaliyadaha xisbiyada bulshooyinka kale rag iyo dumarba dhalinyaro sidii loo midayn lahaa wixii laga midaysan yahay wixii gaar loo kala leeyahay waa gaar oo xisbiyadu gaarkooda u shiri karaan arrimahooda u qabsan karaan laakiin arrimaha guud ee danta guud ah ee biyo kama dhibcaanka ah in aan loo kala tegin ummaduna ay tahay ummad kaliya oo meel uga soo jeeda horumarkeeda iyo oo ka way ka tahay marka hore waddankan aynu ku noolahay gaar ahaan Stockholm taas oo markaa qaybihii ugu horreeyay shirka saddexaad uu noqday in xisbiyada maadaama imika ay socoto ololihii uu socdo hawlo ballaaran oo waddankii ka socdana aynu ognahay saxaafaduna imika ay xawli ku socoto in Stockholm guddoomiyeyaasha Stockholm ee saddexda xisbi aanu ku soo casuulno shirkan annaga oo markaa ka duulayna inay iyaga laftooduna ay arrimo badan ay dareensan yihiin oo ah taqaranimada in laga midaysan yahay aanu halkan usoo bandhignay si fiican baana inoogu dhacday waa maanta oo ay bishu tahay 29 bisha October waxaan jecelahay markaa qodobada inaan in yar ka taabto ama kuwa ugu doorka roon aan taabto waxaa ka mid ah koow marka hore barta saameynta ay ku yeelan karto doorashadan imika socota ayaanu isla eegnay waxaanu istusnay inay dhinac togan iyo dhinac taban labadaba yeelan karto laakiin dhinaca togan ayaan runtii xooga saaray oo ah qaranimada in laga midaysan yahay ee Somaliland qodobada kale ee muhiimka ah ee halkan aan isku soo qaadnay lagana wada hadlay si fiican la isugu afkartay waxaa ka mid ah in wakiilada xisbiyadu ama guddoomiyeyaasha ama xisbi ahaanba ay dhowraan marka ay afka ka dhowraan ama marka laga hadlayo media ha noqoto ama qoraalba ha noqotee wixii qabiil magaciisa inaan qaadkiisa maadaama xisbiye la yahay laga guuro magaca qabiilkii lagu celcelinayo oo loo guuro xisbi qofkuna uu ku hadlo xisbigaasaan ahay ama taageera ama aan u ahay guddoomiye oo aan dee siyaasaddiisa ku shaqaynaya ereyada xanafta lena aad la isaga dhowro ee keeni kara kala tagnaan ama kala qaybsanaan in xisbiyada qaranka ay ilaaliyaan anshaxa iyo asluubta qodobkaasna isoo ku daba socdaan qodobka hore gaar ahaan doorashada lagana fogaado wax kasta oo shacabka kala fogeynaya marka shacabka imkaan gaar uga hadlayna waa kan Stockholm ee reer Somaliland laakiin wuxuu khuseeyaa dabcan dhammaantiin meel kasta inuu ku noolay ilaa Mareykan ilaa Australia waa uu khuseeyaa iyo waddankii oo ka koow ah in labada xisbi ee lagaga guuleysto kullayba mid un baa guuleysanaya laba ma wada guuleysanayaan labada kale ay u hambalyeeyaan marka go'aanka kama dambaysta uu soo baxo isla markaana Stockholm haddii xisbiga ku guuleysta taladu wuxuu uga gudbayaa markaa inuu yahay kii matalayay qaranka oo dhan xisbi ma noqonayo waxa weeyaan waa xukuumaddii Somaliland marka in loo haddii uu qabsado kulan weyn inuu ku soo casuumo markaa xisbiyada kale labada xisbiye kale iyaguna ay aqbalaan oo ay ka soo qayb galaan iyagoo markaa qarannimadii muujinaya waa qarannimadu waxa weeye saddexda dhardhaar iyo wixii ku xeeran oo aan loo kala tegin taana iyaduna waa qodob kale ayuu isna ahaa aqbalaadda in xisbiyadu labada laga guuleystaa ay si cad marka go'aanku dhammaado ay aqbalaan natiijada soo baxda iyaduna waxa weeyaan waa nuxurka ama soo noqnoqonaya qodobka aan runtii xoogga saarayna waa kaa iyo anshaxa guud arrimahaas ayaa maanta si fiican la isula la fuguray xaafadan Tenista oo ku taala magaalada Stockholm si fiican shirkaas ugu dhacay odayaashii guurtida loo fadhiya oo halkan iyaga fadhiya kulli erey ka oran doona xisbiyadii baa fadhiya waxaana jecelahay in xisbiyada aan ugu horeysiiyo Cabdikariin oo ah xisbiga kulmiye guddoomiyaha Stockholm waad mahadsantahay mar labaad assalaamu calaykum waraxmatullah sida hore oo sheegay qodobadan intaan shirka imaanba waan soo gudmaro waan eegnay waa qodobo runtii nuxurkooda aada u wanaagsan yahay dan u yahay wadajirka iyo midnimada Somaliland shacbigeeda ku nool Stockholm gaar ahaan
waa arrin wanaagsan inaan tusaale u noqono annaga waddankayga doorashada heerka ay maalmahan maraysa weliba xamaasadda dadka la gelinaya ama qabyaalad ama caadifad kale oo ah shaksi ataag ha u badnaato in aanu ka duwanaano tusaale noqono waayo xisbiyada waxay waqti iyo geliyeen dhaqaalaba barnaamijyo inay sameeyaan 5 sano soo socota waxay waddanka ku maamuli doonaan gaar ahaan xisbiga kulmiye ee aan ka tirsanahay waxaan aaminsanahay uun qodobadeenaas iyo barnaamijkeenaas inaan ku duulo xisbiyada kalena saas oo kalean ka filayaa maaragtay inayna dhicin xataa goboleysi waayo xisbi walba wuxuu ka jiraa somaliland oo dhan bari ilaa galbeed khilaafaadka halkan dadka markii doorashadu dhacdo waxaan diyaar u nahay kulmiye afkoodaanu ku hadlaya Stockholm inaan aqbalno go-aanka kama dambaysta ah ee kasoo baxa maxkamadda sare ee dastuuriga waddanka ka horna inaan laga hor dhicin sidaan hore u sheegay badanaa khilaafaadka wax sabab u noqda iyadoo maaragtay cidda laga yaababa inay guuldarro filanaysa ama tuhu ku jiro inay marka hore ku dhawaaqaan inay guulaysteen hadhowna dood iyo muran ka yimaado intaan maxkamadiiba la sugin taa annagu markaan Stockholm joogno 3 xisbiba waxaan jeclahay inaynan ka hor dhicin ilaa maxkamaddu hadal kasoo saarta go-aan maaragtay marka national oo waddankii laga aqbalay talabaad ay ku saabsan xaflad ama ciddii ku guulaysata waan kala qayb galaynaa walaala ciddii kale ku guulaysata xisbiyada kale annaguna sidaas ilaa waxaan ballan qaadaynaa inaan ku casuulno xisbiyada iyo jaaliyadaha Somaliland oo dhan haddii ay ilaahay guusha maaragtay xaggayga noqoto intaasaan kusoo koobaya hadalkayga waana mahadsantihiin intiina soo qaban qaadaysa waxaan ku xigsiinayaa gudoomiyaha wadani mudane xasan Stockholm. بسم الله الرحمن الرحيم عبد جمال علينا كل كينا سيدا قعد سياسة حسب وطني وحاول تاجي هاي سيدي سواء الشركة يهرب مرت سومالي لا قضى بدن هالك قال لي حسبي هان وأنا هذا لي إن أنا إلى هالنوم من بدأ يود الشركة وما درير سومالي لا إسلام مركز وحنا احترامنا إسلام مركز أو قراننا go-aanka ka soo baxa komishanka qaranka oo isagu ah hay-adda awoodda u leh natiijada dhawaaqidda natiijada doorashooyinka maxkamaddu waa marka la murmo maxkamadna lagama sugo go-aan xisbiyo kale oo murmo ama natiijada ku qanci waaya ayuunbaa maxkamad tagaa laakiin go-aankan dastuuriyan waxaa iska leh guddida komishanka qaranka go-aanka kasoo baxa guddida komishanka qaranka ee ay u maamuleen hab ku dhisan xor iyo xalaal xisbiga wadani sida uu siyaasaddiisu dhigayso diyaar baan u nahay inaanu taageerno isla markaana aanu hambalyeeno xisbigii kale ee ku guulaystay aan wadani ahayn aanu jecelnaa anaguna sidaasoo kale markaanu ku guulaysano in ay noo hambalyeeyaan islalkaaga garab taagaan xisbiyada kale waddanka iyada oo aynu mar walba ka fogaanayno qabyaaladda iyo si in lasu bahaysto hab qabyaaladeed laakiin in lasu bahaysto nidaam iyo barnaamij xisbi ayaa dadka reer Somaliland oo dhan ugu yeedhayna wana mahadsantiin Ibrahim oo ah gudoomiyaha wacid Stockholm Sweden oo dhan odaygaas dalkanaga waxa loo imka wakiil ahaan Stockholm baad noo tahay laakiin waa Sweden oo dhan isagu bay hoos maadaan waa si wanaagsan horta assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baa mahadsantihiin qoladiina qoraalada iyo badda casi isku soo dibariday in laga shaqeeyo howlaha iyo danaha Somaliland oo dad moodeynay in la saxo taasina waxa weeyaan dee had iyo jeer ale talaya tusaale waa la isku leeyahay dalkana waa la wada leeyahay waxa weeyaan qabyaaladana waxa weeyaan xisbidan waxa loo abuuray qof kastaba ID-diisa inuu ku gado golomeed laakiin si waxa weeyaan dee tii waxaad moodaa inay dadku ay ama odayaasha kaaba qabiiladu ay marhabaabiyeen laakiin taa waxa weeyaan inaga talaa nooga taalo waxa weeyaan haddii ku guulaysano doorashada soo socota in laga tashan doono oday kastana wareerkiisa ku odkaado oo ka shaqeeyo nabadda aana ku milmin siyaasadda teeda kale aad bay u mahadsan yihiin wakiilada ka socda xisbiyada iyo mustalbeedkuba iyagoo fikradoodii ka dhiibtay meesha halkana waxaa lasla wada gartay midnimada Somaliland in la wado oo taasina ay tahay dee shay qof kasta waajib ku ah taana waa looga siman yahay
marka horaan u sheegay waxa la wada qaadasiitiisa waa isla gurigeyn marka waxa weeye fikradu bay kala duwan fikraddan ku duwan waxa weeyaan sidaynu dalkeena inuu wanaajin lahayn ama dhismihiin qof kasta oo ideadiisa marka waxa weeyaan horta nimankeena ka jooga waxa weeyaan dee ninkaan haysto codaynaya ma jiro laakiinse mas-uuliyaddu waxay saaran tahay dadka jooga dalkii oo aan baaq u diray oo aan leeyahay waa nabadgelyada ha la ilaaliyo hana laga shaqeeyo hana laga fikiro qof kastaana mustaqbalkiisa iyo qofkii u dana waxa weeye 3 musharax oo reer Somaliland meesha taagan 3 nin ee musharax kulba kii ay u igmadaan inuu yahay min mas'uula codkooda ha siiyaan iyagoo iyaga qof kasta kartidiisa iyo wuxuu ku soo kordhinayo Somaliland xisbi ahaan anagu haddaan nahay waxaanu ka shaqeynaa nabadgelyada midaynta Somaliland meel kastaba ha joogtay taasina waxa weeyaan waa waajib waxa la yidhi waxa weeye laa shukri cala waajib waa xil intaanu sii kornimo loo baahay teeda kale waxa weeye ha lagu xuruubo qabyaaladda waxa weeye qof kasta waa muwaadin reer Somaliland waa la wada leeyahay lama kala laha dhismaheedana waa waajib loo sameeyay waxaan ku darsan lahaa in qof kastaba uu ku ciil baxo gacantiisa iyo fartiisa oo maanta uu ku ridi karo kuna doono qof uu igmaday isaga oo gacantiisa ku soo saaray lacag iyo musuqmaasuq aan ku soo bixin laakiin codkiisa uu ku soo saaro taasina waa waajib saaro qof kasta waana lagu ixtiraamayaa teeda kale waxa weeye waxaan halkan aan ka ballan qaadaya haddaan nahay xisbiga oon marar hor badan aan sameyn haddii la naga guuleysto waan u hambalyeynaa haddaan guuleysanana dee sidaas oo kale annagu waxaan waay arag waanu soo marnay waxaan la geelaba jir soo wada mar laakiin se nimankan ay ku cusub tahayo waxa weeyaan idinku bal halayda arko insha allah marka waxa weeyaan anigu waxaan ka baxayaa waxa weeyaan geediguna wuu sii soconayaa howlo fara badanna wuu noo yaalaa marka insha allah midnimaduna laga shaqeeyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa si wanaagsan horta waxaan dhammaynayaa siyaasiyiinta intaan odayaasha loo gelin xoghayaha guud ee kulmiye ibraahim mudane ibraahim baa aan ereyga markaa siinaya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مدحدا قريش سومالان كما قلت قريش سومالان مدحدا بدا عص مدحدا حسبيدا قرنكي وعديو وداني gudoomiyaha Stockholm xisbiga kulmiye iyo odayaasha mustabeedka ah halkan noogu yeeray maanta aad iyo aad baan ku mahadnaqaynaa sharaf iyo karaamo inuu tiyan ka soo qayb galno shirka muhiimka ah xisbiga kulmiye wuxuu taagan yahay wadajirka Somaliland noguma cusba olole doorasho aan galaa horaan u galay waanu guuleysanay waanu guuldareysanay mar hore waanu guuldareysanay mar waanu guuleysanay waxa aanu ballan qaadaynaa haddana xisbiga kulmiye ee Suudaan guud ahaan iyo gaar ahaan Stockholmba inaanu wixii ka soo baxa iyo ciddii ku guuleysata doorashada qaranka Somaliland inaanu aqbalno inaanu soo dhaweyno haddii nalaga guuleystaan weliba ka qayb galno xafladda cidda guuleysata sidoo kale waxaan ku casubaynaa anaguna xisbiyada qaranka iyo shacabka Somalilandba haddii aanu guuleysano in guushaan laga soo qayb galo Somaliland waa mid Somaliland waa isku ujeedo meel baynu wada soconnaa waxaa muhiim ah inaynu ilaalino wada jirkeena aniga iyo saaxiibaday Ibraahim Faacuul iyo Xasan Saleebaan rag asxaab baan nahay wadankan waqtigeeda deganaa waxaan ku geli gadsanayo kaliya aragtida anigu waxaan aaminsanahay inuu Muuse Biixi Cabdi yahay shakhsi ku habboon inuu xilka qabto madaxweynaha Somaliland Ibraahim wuxuu aaminsan yahay Faysal Cali inuu yahay Xasan wuxuu aaminsan yahay Cabdiraxmaan inuu yahay intaas baan ku geli gadsanay wax kale noo dhaxeeya ma jiro idinkana waxaan idin sheegaynaa kuwana daawanayo ama dalka jooga ama dibadda jooga walaalayaal aragtidaas baa loo kala gadsan cadaawad u dhaxaysa ma jirto mana jirto cadaawad u dhaxaysa ku midaysnaada midkaa qof walba ciddii ninkii adeeg ku qanciya ama xusbigii adeeg ku qanciya codkaaga sii laakiin ilaali midnimada iyo wada jirka qarannimada Somaliland wixii wax yeelayana ka fogaada reer kulmiye weliba waxaan leeyahay xusbi qaran baynu nahay xusbi xaakimkii baynu nahay innaga gacanta ku hayna mas'uuliyaduna kayna saaran tahay dulqaad fara badan muujiya inkastoo aan cadaan badan idin hayna haddana waxaad leeyahay haddii xitaa la idinku qaldamo waxaa muujisaan mas'uuliyad weyn muujiya walaaladeeda kale reer wadani gudaha iyo dibad reer cud sidaasoo kale wada jirka iyo walaaltinimada wanaagga ku jira kaasi inuu meel ku gaari karnaa aad iyo aad u mahadsantihiin waa tahay imika waxaynu kusoo gabagabaynaynaa markaa odayaasha sida sharafta leh noogala soo qayb galay ilaa bilowgii shirarkii hore
shirkana inala jooga waxa weeyaan waa cumar xaaji bile aadan iyo maxamed xaaji ismaaciil. cumar kusoo dhawow. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكيلada xusbiyada ururka qoraaga oo anigu ka mid ahay, ururka badda cas oo isaga qudhiisa aan ka mid ahay, iyo anigoo maanta madasha ku fadhiyo odaytinimo, aada iyo aada baan idiin wada salaamaya. ilaahay baa mahadle. waxa aynu isugu nimi waxa weeyaan waa wanaag doon aynu doonayno nafteena iyo ummaddeena aynu la jecelahay. waxa aynu ka hadlaynaa maanta mowqif baynu maraynaa, aynu filayno haddii ilaahay ka dhigo inaynu waa cusub u gudubno doorashada dabadii. doorashada waaga inoo beriya haddaynu inagu nahay reer iswilan shacabka ku dhaqan ee Somaliland, waxaynu doonaynaa inuu noqdo waagaa inoo beriyey midaynu barwaaqo iyo bashbash inaga oo midaysan aynu ku wada meel marno. waxa aynu markaas sii saadaashanayna waxa wanaagsan ee aynu jeclaan lahayn inaynu qabsano, oo ay ugu horeyso midnimo, ay ugu horeyso inaynu dalkeennii aynu wax u qabanno inaga oo mid ah. taa ayaynu markaa qorsho ku dhiganaynaa halkii aynu markaa wax ka qaban lahayn. waxa aynu doonaynaa ciddii ku guulaysata doorashada maanta ee timaada in wixii aynu qabsanayno taladeeda ay inooga dambeeyaan, oo kii aynu nihahno annaga kaa wax noogu dhiiba qolo waliba ay aqbasho, ee iyagu aanay inoola iman miday iyagu wataan ay leeyihiin annaga wax iyaga ayuu maxaanku idhaahaa fulinaya. ee uu noqdo xataa hadday ka wataan uu noqdo mid mid dadkao dhan u wada dhaxayn kara, oo dadka oo dhan isku wada wadi kara, oo ay noqoto haddii beri ka maalin dowladda cidi ka timaado aanu noqon mid u socda cid gaara, ee uu u wada yeedho dadkii oo dhan, oo ay markaa noqoto wax had iyo jeer ummad midaysan oo wixii weli ku yimaadaba iyada oo mida si uga wada hortegaysa. annagu kulleyba odayaal ahaan wixii aanu istusnay ee aanu isnidhi dadka ugu baaqa waa midkaa dadka dalkii jooga ee iyagu leh awoodda inay codka bixiyaan. ilaahay waxaanu ka baryaynaa in ilaahay idin nasiibsiiyo halka ummadda uu khayrku ugu jiro, oo inagu ma dooran karre ilaahay inoo doorto. inagu wuxuun baynu nahay wax maaragtay aan iyagu lahayn go-aana ilaahay wado. ilaahay meel sanahayna mariyo, kii wale soo baxaana musharaxiintaas waa nin reer Somaliland, waa nin isaguba wanaag doonaya. ilaahay waxaanu ka baryaynaa wax ina mideeya in ilaahay inoo keeno. maasha allah. waxaan kusoo gabagabeynaynaa qeybtaa hore maxamed xaaji ismaaciil oo ka mid ah isaguna odayaasha Stockholm. بسم الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. horta badasha dhammaanba shirka inta kasoo qayb gashay waan salaamaya, iyo dadka kale ee naga daawanaya dibadaha insha allahu tacaala iyagana salaantaas oo kala ku salaamaya. intaa kadib maanta waxaynu isugu nimin oo aynu dhegaysanay wanaaggii aynu doonaynay, iyada oo guddoomiyayaashii xisbiyada ay ballan qaadeen in ay ka qayb geli doonaan nin waliba xisbigii kasta ee guuleysta xafladiisa una hambalyan doonaan. ilaahay waxaanu maanta markhaati ka nahay oo la hortegaynaa inaa ballantaa qaadeen oo halkaa aa ku qaadeen. ilaahayna haydu waafajiyo, aydaan hadhowto noqonin cid dib uga noqota. intaas waa halkaa ururka qoraaga iyo ururka badda cas aada baan ugu mahadnaqayaa. marka hore aada iyo aada ayaan ugu mahadnaqayaa, iyaga oo iyagu soo gabanqaabiyey
hindisahan quruxda badan leh ee somalilan aynu doonayno inay mid ku ahaadaan aada baan uguba hambalyeynayaa uguna ducaynayaa. waxaa kale oo aan ilaaweynin ama aan kula talinayaa hindisahan aynu inteenan isugu nimi maanta iyo 2 maalmood ee horeba laga shiray ee ah qarannimada somalilan sidee looga saaraa carqaladaha jira oo loo geeyaa meel qarannimo ah oo dhaba. hindisaha inagu waynu faallaynay 2 maalmood ee hore. waxaan ku talinayaa in bulshada kalena hoos loogu dhaadhiciyo oo aa gaadhsiisaan dhalinyaro aqoon-yahan noqotay baa joogta waddankan oo aada u jecel dalkooda inuu horumaro meel wanaagsan. qabyaalada dhinacan aqoon iyo sheekooyinka kale jira qoladaa inaad shir gaara la yeelataan waa talada aan ku talinayo. aqoon-yahan kale oo badan oo aan ina ogeyn baa jira iyagana in shirar kale loo qabto oo la gaadhsiiyo. waa qodob labaad. haweenka firfircoon ee faraha badan ee dalkan jooga iyagana inaad shir gaara la yeelataan sidooda looga dhaadhiciyo oo sidaasaynu kaga bixi karaa dabeedna marxaladda ah. iyo aniga waa taladayda iyo rayga ay ila tahay. intaas markan ka baxo waxaan leeyahay 3 tartamayaal ee xisbiyada kasoo jeeda iyo madaxweynenimada u tartamayo mid baa ilaahay u qoray looxal maxfuudkaanu ku yaalaa maanta. ilaahay waana og inagu si ma garanayno. ilaahay waxaynu ka baryaynaa in ilaahay ka dhigo kaas mid xaqa waafaqa oo ilaahay waafajiyo dariiqa xaqa ummadana hoggaan dhaba u noqda oo aan eexasho iyo cadaalad darro toona aan ku dhiqin. sidaasaan ilaahay uga baryayaa. wasala allahu calaa sayidina maxamed wacala alihi wasaxbi wasalam. ما شاء الله محمد حاتم فعلا هذه أدب محسية waxaynu kusoo gabagabaynaynaa cabdiraxmaan xaashi oo labada urur ee arrinkan soo waday siina wadi doona oo kala ah ururka qoraaga somalilan iyo ururka badda cas ee stockholm ka dhisan inuu ku hadlo ama erey naga yidhaahdo. waa mahadsantahay. asalaamu calaykum. horta waad mahadsantihiin marka hore dhammaan xisbiyada qaranka, odayaasha, ururka qoraaga, ururka badda cas. shirkan horta ama shirarkan mudday soo socdeen sida la sheegayna labada urure ururka qoraaga iyo ururka badda cas ee somalilan isduulan ka jira ayaa soo qaban qaabiyey. kolley waxaa noo sharaf ah qayb ka mida natiijadii shirarkan aan doonayna inaynu maanta soo gaadhnay oo ah inaynu isla garanno qodobada aynu halkan uu sayid inooga akhriyey ee ah asluubta iyo habdhaqanka doorashada ka hor iyo kadibba. waxaanan aada ugu mahadnaqayaa 3 guddoomiye ee reer Stockholm ee 3 xisbi ka kala socda inay hortayada ama horta dadkaa dhageysanaya ama daawanaya ka qiraan inay qodobadaa ku heshiiyeen uu mid walba si xisbi ahaan uu gaarkiis u qaatay inuu dhowrayo qodobadii shirkaa ka soo baxay ama la isla gartay intuu shirarkan xisbiyadu ay socdeen. kolley fariintan waxaynu u diraynaa bulshada somalilan meel kastay joogto. waxaana filayaa inay noqonayso qodobkii ugu horreeyay ama tallaabadii ugu horreysay ee howlahan ka bilownay Stockholm oo lagu guuleystay inay noqon doonto insha allah. waynu arki doonaa natiijadeeda. waxaan la iloobi karin inuu shirarkan ay sii socon doonaan. maanta tii xisbiyadaynu soo gabagabeynay laakiin horeynu uga soconaynaa. waxayna sugaysaa tii jaaliyadaha oo iyaduna dib u geli doono. waxayna sugaysaa tii dhalinyarada. saasay u wada socon doonaan shirarku ay isku daba socon doonaan. waxaan rajaynaynaa aakhirka inagoo sidii hore uu ibrahim sheegay 94kii jaaliyad keliya leh, meel keliya iskugu nimaadna, dadkeenu meel keliya ku xafladeeyaan, meel keliya caruurteena qur-aanka lagu baro
ayaan rajeynaynaa. waad mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullah. waan ka baxay. aad iyo aad u mahadsantihiin.